adigoo wasiire ah oo xukuumaddii ka tirsan in qoyskaagii dhul ay lahaayeen inta laga qaado weliba la xidho sidee kula muuqatay maalintaa arrin dee adag bay ahayd aniga iyo muuse madaxweynahaygi buu ahaa laakiin hawl adag baan soo dhex martay waa anigan kule aroortii la xidhaya reerkayga muuse u dhoof diyaaradda ayuu raacay waa lagu waabiristay anna soomaanka indhaartaha 11 waa lagu reerkaagii aabbii waa cagtaa la mari adoo way soo daayeen habeenkii caruurtii iga xidhnayd iyo reerkii xaaskayga ku jirtay dadka la xidhay xaaskayga iyo 2 hablood dhalay iyo dee ehelkaygii kale ya hablayaanu seediyada ahayd ya reerkaanu xididka ahayd iyo ehelkaygii kaleba waa la xidhay marka halkaasay dee anu isla maro dee waa taa gorgortanka iyo baayactanka iyo futuudka iyo hadalku yimid marka adoo imika faylkaasi madaxweynuhu leeyahay markaa meesha geeliisa ayaa joogay muuse geeliisaa joogay meesha sawkii daaqi jiray arrintaa iyada waxay raad xun bay dee reebtay oo ama reerkii ku reebtay qoyskii lahaa dee dhulkan laakiin markii dambe dee ma yaraysane lacagtu man isku diidnay ya adduunkii baayactankii man isku diidnay marka imika waxaad leedahay dadku weli waxay ka warsugayaan xukuumadda cusub iyo go-aanadii ka gaadho debe go-aan waaba laga gaadhay oo cidda ka gaadhay aniga kowdhe madaxweynaha go-aanka lamaan qaadan anigu laakiin wixii lays yidhi aniga kowdhe madaxweynihii tegey muuse biixi cabdiraxmaan saylici maxkamadda guddoomiyaha maxkamadda sare iyo soolteelka intaasaanu ahay 5taa ayaa go-aan gaadhay ayaa dee abrax ansul isula nimid waxaanu isula nimid ya muxuu ahaa dalca iyo nasla waa dee aban downs oo dee baayactankii dabadeedna halkaasay waxbay dee iyagu gooyeen oo isku raaceen afartoodu way ujeedada ugu weyn halkaa iyadoo madaxtooye la haysto meel kale in madaxtooye loo raro laga dhiso ujeedada ugu weyn maxay ahayd wallahi inaad taas dee madaxweynahaad weydiin madaxweynaha la damcay meesha madaxweynihii hore ayaa la damcay marka war maxaad halkaa uga dhigaysaa dee maanaan oo dhan oo dee dhulku waaba isku haysanaa waaryahay marka dee tagna iskana wareeji